kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo uga hadlayna waraysiga uu bixiyay Xasan Xanafi oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab qabsashada Al-Shabaab dib ay u qabsadeen magaalada Marka iyo qaraxii diyaaradda Daalo ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. barnaamijka waxa igala qayb galaya tafatiraha website-ka Waaga Cusub Daahir Calasow. waa tahay Daahir aan ku bilowno waraysiga Xasan Xanafi Xaaji oo Al-Shabaab muddo ka tirsanaa ciidamada Kenya ay ku qabteen wadanka Kenya kadibna loo soo gacan galiyay ciidanka dawladda. maxaa kaaga baxay waraysigii aad daawatay warbaahin dawladda laga sii daayay? waa maasantahay Maxamed Bashiirow. waraysiga markaan daawaday waxyaabo yaab la ayaa iga baxay. waxaa kamid ah waxa uu yiri markii aan meeshii la Salaaxudiin ama Salaaxudiin aan joognay wuxuu shirkado ganacsi iyo shakhsiyaad qurbaha jooga ayaa lacag la siinayay. Maxamed Bashiirow waxaan la yaabay ma ninka wariyaha ah ee waraysanayay Cabdicasiis Maxamuud Guulada Afrika oo aan abtigi ahay oo raggii saxaafadda aan ku soo dhaweeyay ah oo waqtiga ugu badan aan soo wada qaadanay ay ka hoos baxday oo aan fahmin arinta oo ka hadlay Xasan Xanafi macaayis dawladda ayaa saaran. waxa uu ninkan ganacsiga maal gelinaysa shirkado xamar ku yaalo oo ganacsi ayaa maal gelinay soo ma ahay inuu weydiiyo shirkadahaas kubay ahaayeen. Maxamed Bashiirow inta barnaamijka daawanay waxyaabaha igu yaabka badan waxa kamid ah markii Xasan Xanafi uu telefoon u soo diray wariye Cabdiraxmaan Cadaala hadalkii dhexmaray waa ka murugooday. waxa ay sawirmay halganka dheer ee Cadaalo iyo ragiisa ay soo mareen. waxa yaab leh in ragiisa soo halgamay ee wasaaradda warfaafinta ka dhigay wasaarad adag oo Al-Shabaab loodisay oo meel saartay in halkii laga dalacsin lahaa maanta la kala eriyay. marka aan ka hadlayo ragaas waxa kamid ah Cabdicasiis Maxamuud Guulada Afrika oo aniga barnaamijka daadihinayay. waxa kamid ah Maxamed Abuukar Macda. waxa kamid ah Yaxya Cali Faarax oo isagana shaqada laga eriyay. waxa kamid ah Cabdiraxiin Ciise Caddo oo xilligii uu soo laga qaaday. waxa kamid ah Cabdiraxmaan Al-Adaala oo agaasimihii telefishin kaliya loo qoori waayay oo dama jadiid iyo ninkaan sheegtay wasiirka warfaafinta ay xaquuqda dafreen. runtu waan calool xumada xalay in yar markaan joogo waxa ay hor imaanayay Al-Adaala halganka uu soo maray. waxa uu ku yiri annagu waxa weey hebel adaadishay ninka waa nin shahiiday. waxa halka iga soo baxday Maxamed Bashiirow runtii waxa halkaas iga soo baxday in uu jiro heshiis wasaaradda warfaafinta ragga ka shaqeeya ay wada galeen kaas oo ah haddii la dilo qof in qofka la dilo xaaskiisa la keeno, in qofka la dilo waalkii la keeno, in qofka la dilo wiilkiisa la keeno, in qofka la dilo gabadhiisa la keeno, in ay jirto nidaam gobonnimo leh oo isku xiraan leh oo juhdi oo og yihiin in qofka uu dhimanayo oo la dilayo oo loo dilayo shaqadan uu u hayo qaranka. dadka noocaas sidaas ku dhaarsaday ma mudna maanta in mataqaan loogu abaalgudo in shaqada laga eriyo. ma mudna maanta in la niyad jabiyo oo cadowgooda loo kufiyo. marka aan waxaas weydiinaa dama jadiidkii Al-Shabaab maxay dhaamaan nigla Cabdiraxmaan Cadaala waxa lagu bedelay oo xilkiisa loo dhiibay nin Ingiriis ka yimid oo maanta ay cusub tahay juhdiga aniga soo galay ee telefishinka qaranka dhisay ee radio Muqdisho dhisay. Cabdiraxiin Ciise Caddo wuu iska joogaa maanta xamahayo. Maxamed Abuukar Macda xamahayo. Ema Macalin waa ogtahay wiilkiisa la dilay waa ogtahay. waxa weey maanta lima Al-Nuur iyo mataqaana gabadhi kalanto Hindiya Xaaji waxa labadoodu waa la deelmahooda agoonaha joogo. waxa ay muuqata dayac weyn iyo ku xadgudub. marka waxaan dhihi lahaa haddii dhageysanay dadka damqashada leh arrimaha noocaas yaa la aqbalin. waxa weey Al-Adaala wuu soo halgamay, Cabdicasiis Afrika wuu soo halgamay, Maxamed Abuukar Macda wuu soo halgamay, Cabdiraxiin Ciise Caddo wuu soo halgamay, ninka Yaxya Cali Faarax wuu soo halgamay. gabdhaha iyo wiilasha ka shaqeeya radio Muqdisho iyo SNTV xaalad adag ay ku soo shaqeeyeen. warbaahintii qaranka ka dhigeen warbaahin jirta. maanta waan u jeednaa sidoo telefishinkii u noqdo telefishin wararkiisii barnaamij dhex yaacsan yihiin. dadka u soo halgamay arintan gobonnimada leh ee yar ku yiri of ku yiri shabaab ee qawaariijta iyo argagixisada meel saaray yaa maanta xaqooda lagu tumanin yaa la bahdilin. kuwa bahdilayo waxaan leeyahay waa kuwa cadowga u shaqeynaya. runtii hadallada uu ku hadlayay
العدالة يسيروا حلقة على حلقة أبنها صدركوا أها وأول جوابي حنفي ووح لك الشكيكة ووح أنا الشكيكة وح كلو يا بيقول لي وراسي أنت هنقول جري وح على الصهار قال لك لا يونس عبد الفتاح ما يسرون تأويه وح بلغ مسي ويدين وكما يونس أما عبد الفتاح محوك يعني كان وح كلو يا بيقول لي برنامجك أنت الداونة أي وحبل ما ويدين شبكتك كتاي وحور وبسط كمجاهد قرعي وحاسس سميناي أوست يا شبكتك كل جرا سق يونس يا كلا شبكتك كل جرا في الماضي يا أدوبة على الشباب يا متقنا ضدك صغرين هاي كقاعدة ورئيسية ده إذا عدل أدرس حقيقة تعالى وبسط كذا يا معمولة وحكلو أنت عن ورئيسك الداونة أي يجي هل إن عياح لقوا يدي يادش وحو شيء ذاك الدري لكن إن عكره وحياة أنا أقول وحكم ده حس حنفي أنا جي أسجى فاستقل قليل حافظ توفيق تعالى ينكود قيل جرني هبين قلب شيء كيس جرني معلومات بدنا نرش السنك أوجهاي سجل غير جرت أسجى غير جرنا أسجى سجار معبي جر والله يا مركز سجار كوشدان سجار معبي جر ووضع قيل جرنا أنا أسجى إنها تسوي الجوج لا فاستقل قليل توفيق كود قيل جرني وأنا عصوصتها هبين وحن كوري حتى نصوص الجليسة وأنا التلفون كدكتا وحي هاد هبينك أن أجادي إن أنمك كل جليه أنا هذا كمرة تلفون لصواعي عفقر الشغل وبحنا يسيد وهلا أي وحن كوري مركز جليس بسقشة وأنا التلفون كدكتا واحد ربك إن لو يديو حنفي وحو الشاقي دتك وكل جلها إنه تري ورياشها ورياش اللي مو ذا ويدين محمد الدين بانرام اللي مو ويدين بشير نور قد اللي مو ويدين ركلوا وريال احنا اسمه الصومالي وين اساس ها لما ويدين لما لا لكن واحد ربنا ويديو نين كان موحو اها نين الشباب كري u shaqeeya oo dadkii diliyeen oo waxay mas al-shabaab laftooda ay lu kulaha tusaale markaan ka soo qaato xasan xanafi dilkii al-xashi ay lagu kulaha wuxuu ahaa qofkii labaad ee mishinka al-xashi ay lagu dilay ka shaqeeyay wuxuu ahaa ninkii markii qarax markii la dilay al-xashi ay 7 daqiiqo kadib soo wacay iko film graderkiis 5 daqiiqo ka horna waxa soo wacay Allah naxariistay taliyihii nabadsuguda gobolka mudug yaasiin talwaay 3 daqiiqo ka horna nin staafkii nin lijir muxuudiin oo asmara ka tagay oo shaqaal ahaa oo maxaakiimta ku jiray kamid ahaa ayaa iko film garay saas isu daba joogeen marka wuxuu ahaa rag GPS ta obreshkaas kaalin ka ciyaaray oo ahaa waxba laga weydiin sheekada xiisaha leh in xoogaa limadaro ta laga yaabaa xanafi marka dambe wuxuu noqon wax badan ogeyn oo beelow ah tusaale Dennis Alexa nin sargaal oo Francisca ee security-ga kamid ahaa ayaa shaab afdurteen waa kala xiriiray xogaha uu bixinayo dhan oo isiinayay ninka ku saabsanaa waxay ahayd been wax badan oo macluumaad oo la heli karay lagama wareysan waxa kale oo yaab leh wuxuu yiri kooxdana al-shabaab qaybna aad xaashir oo yaxkumay qaybna xasturka ayaa xukumay qaybna halka muqtaar leeyahay hadda dawladdu ku jira yaxkumay talafteeda waa dambi kale ninka al-shabaabka ahaa ee shalay aas-aaskooda kaalinta ku lahaa ee madaxdu ahaa ee dilkaas ku lahaa inuu maanta dawladda ku jiro isagoo cadaalad la marsiin intaan daawanay filimkaas waxa igu calxumo badnaa waxa igu yaab badnaa oo ka tiiraayooda ilaahay u naxariistay Sheekh Nuur Abkay marka sheekaynayo ninkaasi arintaas waxay u noqotay arintaas xal dhan waan ku qarway Sheekh Nuur Abkay dilkiisi waxa kale oo igu naxdi badnaa inkastoo soo hadal qaadin ilaahay u naxariistay wiil aan macalinkiisa ahaa oo farmashiitu fi tacalli isku baranay oo suuqa xoolaha leh timacade aniga journalismka soo baray aniga aan keenay maxamed timacade fiican ayuu ahaa daahir aan ka dhex galo dad badan baa qabo in dawladda hadda gacanta ay ku hayso Sheekh Xasan Daahir Aways oo hogaamiye sare oo al-shabaab ka tirsan ahaa waxa kale oo gacanta lagu hayaa hogaamiyihii al-shabaab ee Puntland atam madaxii amniyaadka ama madaxii sirdoonka al-shabaab Sakriya gacanta dawladda ku jira marka hogaamiyaal sare ayaa dawladda gacantooda ku jira marka dadka qaar waxay leeyihiin Xasan Xanafi sida loo soo qabtay hogaamiyaashaas qaarkood sida loo qabtay waa same
ma qabiil ahaan baa loo kala soocayay oo cadaaladda xasan xanafi ay u aadaysaa ilaa dadkan dilal bay geysteen laftigooda ganacsatada la dilay saraakiil baa la dilay aqoon-yahanada la dilay wariyaal baa la dilay dumar iyo carruur baa la dilay marka cadaaladda soo uma sinna ayaga mise waxbaa qaldan waa su-aal fiican maxamed bashiirow su-aasha ay weydiisay aad tiri xas daahira joogo sakariya joogo ninka muqtaar leeyahay joogo raggii al-shabaab argixisada ahayd dadka dil jiray ayaa joogo waa sax waa arrin aan la qaadan karin arrintaa waa arrin aan la qaadan karin waa arrin iga yaabisay marka waxaa la doonayaa in dadka dembiga geystay la wada keeno tusaale ninkan shirkado ayuu sheegay maalgelinayay waa in shirkadihii maalgelinayay shacabka la qiimeeyo la soo bandhigo laga hadlo la marsiiyo xukunka xasan xanafi maxaa yeelay ninka soo diray ayaa joogo muqtaar dawladda ka tirsan muqtaarna waa in la marsiiyo xukun hadii cadaalad laga hadlaayo xas daahir aweysaa joogo xas daahir aweysna waa in cadaalad la mariyaa sakariya joogo soo dhiibay yaa ule awood oo ka hadli kara walaalkayo la dilay hooyadayo la dilay aabbahayo la dilay ninkii dilay yaa cafin kara ninka cafin kara waa aniga waa qofku laga dilay saa darteed waxay tahay doqonnimo waxay tahay waxaan la qaadan karin in la yiraahdo dawladda cafisay dawladda ma cafin karto qofkaan walaalkay dilay dawladda ma cafin karto ana cafin kara ilmaha sheekhnuu akeeni ka cafin kara ilmihii saciidta la cafin kara ilmihii xiisa cafin kara ilmihii dadkii uu dilay walaalahood hooyooyinkood aabbahood ayaa cafin kara dawladdu ma cafin karto marka anigu waxaan qabaa in arrintan si qoto dheer aan degdeg dil lagula degdegin ninkan oo haddii cadaalad samaynayo arrintaas si weyn oo sidaan ka miisaan culus loo hagaajiyo arrinta qabiilka ama 4.5 dad badan baa qaba oo aaminsan oo dawladda ku jira marka in nidaamkii loo maray hadda ma laga yaabaa oo xasan daahir aweys la leeyahay beel weyn buu ka dhashay sakariya beel weyn buu ka dhashay aatam beel buu ka dhashay laakiin dadka qaar ah beelahooda yiriiriin oo xukunka cadaaladdu ay qabataa sida ma u muuqatay goolta arrinta sheegtay waa arrin macquul ah runtii ninka xitaa beesha ka dhashay xasan xanafta soo qaato kale waa nin baada cadda ah oo hawiye ah xasan daahir aweysna waa nin habar gidira sakariyana waa bariixaan laakiin waxa u malaysaa in arrinta beelaha ama qabyaaladda ama qabiilku uu aad saameyn ugu leeyahay cadaaladda ama dawladnimada ninka la axmed cali gees oo ku hanjabi jiray waxa sutaa cadaad iska jooga cid disho male waa raggii ku faanayay oo telefoonada codka laga hayo codkooda aan hadda hayna dhegeysanaynin nin weyn waa tahay horta waxaa waaye inaan mujrim iyo bakti calla bursida u timaanto laga fiican yahay واقر من شيخنا واسع ولاده واقر qofka hadduu islaam uu yahay muslim yahay haddaa gaal ku tilmaanto gaalnimadaas qofka kasoo baxay ku noqonaya layidhi marka hadda niyo sheeqow arrintaas arrin culus waay anigana waxaa waaye codankaa intaasaad iisoo wacda mise wax kale anigana codankaa duubay maanta haddaan erag u dhinto ama al-shabaab ay idilaan beesheeda iyo talkeygeeda ku raadsanayaan inta maad iisoo dirta beesheeda codkii dhan waa geeyey abtiyaashia u geeyey adeegaashia u geeyey oo qaar u sheeg murtadaan kugu xukumay anaana ku xukumay saari qaataay tuuga codkaygii baad xadday saxaafadii baad ku xadgudubtay sida nimankaasaad u shaqaysaa murtad munaafiqaa tahay oo baashi adiga iyo ninka la yidhaahdo guuraba munaafiqaan dhexdhexaadnimadii wixii idaacaddaad sheegayna waad ka baxdeen ilaahayna ma taqaanaan muslimkiina waad ka baxdeen cadowgaad u shaqaydaan muslimkana waa la diriraydaane wixii aad heshaan aad leedihiin أمانتي تلفونك أنا صوّع المرضم شيء أحمد علي جيس تلفونك أنا صوّع المرضم شيء أحمد علي جيس إلهي متقاني البني آدم طاي هذا صوّع تلفونك أحمد علي هاي أنا أركع عندنا الضوء هذا أبغى يجيب الشغلات هذه أحمد علي إبليسيو أحمد علي جيس وحوا يرسنيه هو نكلا سالت كشيء يصير يعني aniga nin kuulu dhow kula shaqayn jira ahay golaha masjidda dawid waa munaafiq ma in almunaafiqiina fi darki al-asfal min waxaad ugu qayaantay waanadan ku waaninay aad ugu qayaantay muumin dad lama qaanino mar dambe khiyaani maysid munaafiq baa tahay in muslimka oo madawid murtad baa tahay iblis baa tahay saarif baa tahay saxaafadii baad ku adgudubtay ee allaha hadduu alla yahay
أمانتي صحافة بنا صوغا golaha malaagin مرتدي golaha dhaqanka laga saaray saasoo maqalnay مرتد عطاي مرتد si Ahmed إبليسة qawarista u shaqeysa laftigaaye هذا وانا تانتي عامل سوما صوت عرفت عامل سوما ولا لها مرتد عطاي نمو كل جين تاس آخرنا النار الولاية وشوية نار إبليس يو oday ciyaal منافقنودي هذو منافقين المجاهدين تنا waxaan ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan inaad ka baxday banaanka soo dhigtay adiga waan guuraba munaafiqiinatiin afan ninka la yiraahdo waxa lumitiin ninka la yiraahdo cadaariyo afrika iyo nimanka idaacada ridada u shaqeeyay barkula nimanka u shaqeeyay lumitiin waxa faaran leedan ciisa bidin misa bidin maanta huwa haysta manana هم هايسته إلهي بقول لك أنا هايسته nin cayr ina ahay oo abtiyaasha ay saacadiin moogta عير يا عبتاكا وحي دونان هذا وريا مرتد عير يا سعد مرتد عير يا سعد مرتد باطل منافق باطل مبدا اجيب الدرطي ولا تشتروا بآيات الله ثمنا غير ما كنت فايزات هاي صدق بقول دولار اللي بيسيو دين تاع كون غلطي ما يشرك هذا ما يشرك كذا kuma sheegay nabina waxa waa ay sheegtay murtadaana tahay beenlo waa tahay munaafiqa tahay saariq waa tahay tuuga saasa u sheega saad iyo cayr oo dhan u sheega iyo soo kala dhig cayrkiisa aad jeedid hadaysan ku dilin bana ku sheegay oday Maxamed Diiga waxa xasbunallahu wa ni'mal wakiil alle taagi raamin soome haku badbaadi adiga hadda ku soo socdaan gurigaaga yaqaanaan meesha deganta yaqaanaan waxa rabto soo daa saxafi ila مرتد أي وركي سمر تلفون كي جاتنا مرتب ما مسوي غير saxafi ila deganta way ogaayeen ina meesha naaga ku dhabi jirtay ogaayeen haddana meesha ku imaanayaan marka aniga waxaan leeyahay arinta Xasan Xanafi ha loo dad badsado maxkamad ha la saaro qoysaskii wax ka dilay ee dadkooda u dilay ha la keeno sidoo kale dadka arinta ku lug lahayd ha la keeno kuwa kale ee al-shabaabka ah ee dilay ku lug lahaana ha la keeno حسن ظاهرة وسن هلا كيرو سكرينا هلا كيرو كوبا كله تلياش إذا ما لقى دقي أرجع حسنا حق أملها إن ذاتك اللي إن لجوا أبال مري إنه حلقة حق أملها كوانا هلا كيرو سيدا عدالة ده هلا الشقي